madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa deeq raashin iyo wafdi ka kooban salaadiin ugaasiyo ganacsata iyo madax dhaqameed u soo diray deegaanka Dhumay oo 70 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Laascaanood halkaas oo dhawaan dagaal beeleed ku dhex maray laba beelood oo walaalo oo wada dega deegaankani wafdigan oo ka kooban Suldaan Cabdimaalig Suldaan Maxamed Haybe Jamiil Maxamed Gaas Chief Caaqil Mahdi Mawlid Warfa ugaas Maxamed Askar Maxamed ugaas Maxamed Carab ugaas Yuusuf Kaahin ganacsada Cabdilaahi Axmed Nuur ay wehelinayaan qaar kamid ah cuqaash iyo waxgaradka gobolka Sool iyo gudidii nabadeynta beelaha walaalaha ayaa saaka ka aanbabaxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool intii aysan ka aanbabixin magaalada ayaa waxa saxaafadda la hadlay Jamiil Maxamed Gaas oo ka warbixiyay deeqdan iyo halkii loogu tala galay Jamiil Maxamed Gaas waxa aan halkan ku joognaa guurtidii ka timid dawladda deegaanka Soomaalida u socotay nabadeynta dadka walaalaha shaqaqada soo kala gaadhay hadda waxaan ag taaganay waxa weeye waa gurmadkii dadka walaalaha shaqaqadu ka dhaxdhacday dadkii barakacayaasha raashinkii aan u wadnay weeye ee uu soo dhiibay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu soo dhiibay weeyaan raashinkan hadda baabuurta iyo gaadiidka aad arkaysaan iyo qalabkii teendooyinkii iyo bacii awdi la goglanayay maacuntii waxa isugu jira iyo raashinkii oo kala bedelan oo bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo saliid isugu jira marka gurmadka uu madaxweynuhu noo soo dhiibay ee uu ugu soo tala galay dadka tabaalaysan ee dadka barakacayaasha ee dagaalka ka barakacay raashinkii loo waday weeye عاقل سنيرة يا عاقل عبد الرزاق عردوفة أو كم إذا وحجرت كقبل كالصولة يا يجون هاد عليا مدحونها الدولة ديجان كالصومالية مدن مصطفى محمد عمر سيد النحريس تلا وجوسو جرمديدات كبرك عيد ديجان كردومي دوان دجال بلاد كوكاد عي تاني يسمدني عقاش فرحة بدن دولة ديجان كي كيل كنوعات مليونو وديرها شكل آدي أدري دوكم عاد علينا هذا أنا أقول لك حاتك إن بدن تقبل كالصول سمير سعيد بلا بلشة تي في لا